نك ميت كهبا كفديدا ku faa'iideysta ايه qawaariinta markay wax ka dhaawacmaan dhaawacaasi inuu noolaano ka shaqeeya cirbadu ku dhufana cirbadaas oo aakhir u dirayso garmaqalkan ayaa wax la isaga weydiinayaa weerar abaabulin oo 4tii bishii 6aad 2024 ay qawaariintu ay ku qaadeen waaxda Burdheere degmada Daynile ee gobolka Banaadir kaasoo lagu beegsaday guriga nabadoon caan ku ahaa argagixisadiid ku dhawaad 15 dhagarqabayaal qawaariij ah ayaana habeen saq dhexe weerar ku qaaday guriga nabadoonka waxaana halkaas ay ku dileen marxuum nabadoon Cabdi Xasan Muxudiin iyo Qadar Cabdu Maxamuud Jumcaale oo ku sugnaa guriga nabadoonka halka la afduubtay Cabdicasiis Muumin Xasan habeenkaas qawaariijii weerarkaasi arxandarada haageysatay ayay hadda nagala joogaan iyagoo eedeysanayaal ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo afgarashadiisu tahay Yunis iyo Maaxi waxaana weheliyay Maxamed Yuusuf Jaamac Jibriil oo isna afgarashadiisu ay tahay Khalid hortayna shabaab Hamidi tani shabaab waxaan kamid ahaa 10 bilood 5 bilood jabhad baan ahaa intii kalena tababariyo waxaan ku maqnaa dhexdooda inta joogay ahayd adiga markaa hore halkee ka timid deegaanka ka timid iyo meesha ku timid loo waxaan ka yimid Hargeysa markii hore 2023 bishii May 26keedii ayaan xamar imid diyaarad baan soo raacay kadib gaari baan raacay meel buulo falay la yiraahdo ayaaba gaarigu geeyay halkaas ayaaba markaa aduu kulay wax aduu halkaas markaa ay marshan kaga beeray aduu kulay inay aduu kulay ana ikhtiyaarkayga oo markaan imanay meesha sidoo yimid kulay waxaan ka raadinay isbedel nololeed oo ku saabsan waxa aduu kulay nin dhalinyaro ah baan ahaa wargeysa ku dhashay ku koray inay mararka qaar iska shaqaysan jiray kulay inayniyo qof waxba saameeya anu waxaan qof balwad qaadis gaar isticmaala aad bin nolosheeda u saameysay adduunka iyo aakhirada waxaan ka tabcin kari waayay aduu markii dambe waxaan anoo ka fikiray tan sidaba nolosha u bedeshaa aduu markii dambe fiiriyo baarij aduu fiiriyo daawada maqdac channel 4 uu leeyahay Jamal Usmaan la yiraahdo daawaday inuu ka shaqeeyo dhulka shabaabka inuu dhul nadiif oo qofkii xataa balwadu dhibaatayaan ku dhasan karayo marka anoo isbedel nolol doonaya baan meesha imid oo macnaha isla malaha nolosha bedel gameehan ba aad ku guul darsatay adduunka aakhirada kadib marka meesha tagay waxa lagu yirniyo suurtagal ma meesha iskama noolaan karayo waa inaad macnaha ka mid noqotaa saasaan uga mid noqon marka shabaab yaa ku baray diinta ka bartay diintaniyo mar ma cad baan ka dhiganay muddo 2 sano markii dambe dowlad dhiganay dowladda niman culimo noo dhigi jiray culimo weyn inta ka dhigi ay masaajid la Mr. Rashid baan ka dhigi jirnay culimo wax noo dhigi jirtay aduu culimaasta culimo shabaab ma aha culimo salafiya nimanka salafiyada loo yaqaano kuwaas aan noo dhigi jiray halkaas aan muddo sanad dheeraad ku dhigan kadib yaa kugu soo riday sheekadan nimanka inaa u tii kartay maxay kugu soo dhacday inaa nimankan shabaabka adoo halkaas wax ku baranayo diintaada baranayo nabadaada haysto leo kulay firqooyin way diintu qof kasta si uu u fahmi karayaa inay ana macluumaadka wax noo dhigi jirtay waxay macnaha salafiya jadiidiya ama cisam bil kitaab wal sunna ama salafiya jihadiya oo shabaab la yiraahdo ama salafiya takfiiriya kullu waa firqooyin kasta isaga isteeyo firqanaji iyo macnaha firqada saxda ah marka kulay inay cid walba khalad way yeelanaysaa shabaabna waxay la mid yihiin matqaanaa cid aan khada iyo khalad galin ma jirto marka saasa adigu arigu soo kaliftayna markii dambe imaad okay markii aad timid oo bulfula tagtay halkaas saas aad ku tagtay tababarka qaadanaysa dad kale oo isfahmaysaan oo iska mid deegaanka iska timideen oo meesha joogo oo ku soo dhaweeyay ama aad isbarateen oo la macaamisho ma jiraan meesha intan joogayniyo macna ciidan aqoon isku lahayn hore ma jirin dad isku cusbeen u baahan dadkan isku cusbeenna dad waxa wahaayeen kulli macnaha shabaab marka laga tirsan yahay dadku magacyo waxay wataan magac afgarasho la yiraahdo magacooda saxda ma la yaqaan qofna macnaha qofna reerkiisa qabiilkiisa kuma sheegay ana dadka shaqo ma ka dhaxayn karayso marka saas u baahan marka jilibon joogno jilib waxa joogo macnaha maktab ama xafiis ay dadka roqoy waxa ilmooda tawliyo maamula isku dubarida adu kaasan ka tirsanaa magaciiskaas
لو مكتب أمير كان لا عمر ذكر وقوي كيما دي وحاسو أرمود يسكت بريتاسو محلي لما مكتب كاس مقعيس مكتب مقع لماها ونن سو روقوي dadkii marka halka ayuu ka imaadaa ayuu armahooda qaybsan yahay ومعناه يسكت بردا marka waa maktab marka lagu diyaariyo malaha dad waqooyiga meelahaas kale waxa filaya inay u haystaan meel ka gaabisay jihadkii waxaas marka waa meel laga diyaariyo dadka waqooyiga xasaasa marka yaa madax ka amay meesha loo nig meesha waxa madax ka nin Umar la yiraahdo nin Umar la yiraahdo madax ka nin Cali la yiraahdo kaaliyo iyo nin kale garaadka rag soo jooga laakiin markaas aragtay waa qoysatay Soomaaliya deegaanadii ka soo jeedeen iyo horta niyo magacyadoodu ma aha magacyada saxda qabiilkoodana kuma sheegayaan laakiin seenad isku dad waqooyiga wad garanaysa isku deegaanka ama ka soo jeeda awdal ama waqooyiga badan ama togdheer ama meelaasiin marka adeeg tababarka marka qaadaysi koox kale oo halkaas ka timid oo waqooyiga meeq qof amal tababarka la qaad niyoomay waxaan laba wiil oo kaliya aniga wiil Rabiica wiil bay gulti wax waqooyiga tababarka aniga wiil kale Rabiica aan anigu waxaan markii hore waxaan kamid ahaa jabhadda dhowrkii bilowda hore jabhad baan ahaa waxaan sameyn jirnay roondooyin qori baan sitay qoriga wada aw hadda adiga markii gurgureeysan qoriga aw tagu soo tagtay markii gaarigu noo gubtay ayaaba laba qori aan ka soo saarnay macnaha nin inta gaariga saarnay qori buu lahaa xabad ku dhacayna shaqeynay qori kale lagu jiro saarnaa nin kale idin ka booday watay wariyaasa gaariga saarnaa kadib waxaan imid shabeelaha hoose meel ereyada jinka webiga ah inta aan ka tirsanaa kulay anu wax dagaal ka qayb galay ma jirin marka waxa dhacday galab galba kamid ah ayaa diyaar garow la galay waa la soo baxay markii la soo baxay waxba aan looma sheegin kulay anigu waxaan kamid ahaa jabhadda marka waan soo baxnay markaan soo baxnay adu waxba looma sheegin kadib aduu markaan muddo soo soconay waxa ninkii amiirka watay oo la oran jiray bishaar uu sheegay in macnaha laba nin oo ciidana oo guri degan la weerar lagu yahay kadib waxa dhacday inuu ciidankii aduu 18 gaaraynay qof wuxuu ka xushay aduu 5 kamida islaha hawsha ay ku qabanayaan hawshu buu dirsadeen waxaan joognay meel duleedka meesha wax ka dhacayaan agteeda meesha dhibaato ka dhacday dhibaatada markay ka dhacday kadib meesha waa nimid kulay dadkii loo socdayna meesha waxa ku gaaray anagana qaar mid kamid meesha ku dhintay kadib waxa la qorshaystay meesha laga baxo aniga 6 baan ku soo raacnay gaari ninka naga dhintay iyo 6 kale kadib anagoo jidka socona ayaaba ciidan la kulmeen xabad baa la nagu baasay xabad baa la nagu furay dagaal baa meesha ka dhacay xabad baa la nagu furay lixdeed adu laba kamid kulay way ka degan gaariga intaan iska tal gaadhin way ka boodeen anigu laakiinse boosgoon gaarnay dhibaatada ka dhacday dhibaato halkii nagu la kulantay kadib haddana waan moodnay waan ka gudubnay gaarigii wuu istaagay meel buu ku gubtay waanu ka degnay anagoo afara nin la soo aftuubtay iyo nin kale isna igu cusbaa wuxuu yahay isna nala socday aniga afar baan ahayn wiil isagu xaafadda laga soo kaxaystay ma filaya oo laga shaksnaa iyo wiil kale isna amiir ku xigeen koox ahaayo janda la yiraahdo nala socday iyo nin kale isna habeenkaas nala socday gaarigoodii kadib geed baan hoos fariisanay geed markaan hoos fariisanay waxa dhacday ninkii kulay telefon koox ahaa anu kulay wuxuu gaarigii markii ka dignay wuxuu amray in qori gaariga saarnaa laga soo dejiyo oo laba qori ahaa labada qori waan ka soo dejinay geed baan hoos fariisanay geed markaan hoos fariisanay cabaar baan joognay geedka hoostiisa aduu ninkii wuxuu damcay ninkan soo qafashay inuu dilo ninkan taliko waxay la socday markaas uu mashquulsanaa kale hadal telefooniga wuxuu ku mashquulsanaa anigu ninkan inuu dhibaato ku sameeyay ninkan khaarijina dhaafi kadib isna qof argaxsan baa kale qofka la soo aftuubtay waxaan ku ninkan naga sii daa hadii macnaha hadii inaguna nin dhibaataya laga yaabo qoriyayna qabsado inagana boobo kadib markay saas ku khilaafnay haddana goobtuu gaarigu loo gubto wadda ahayd oo cabaar loo jirtay ilaa 150 mitir 100 mitir meelaha gaari baa yimid gaarigii dad baa ka soo degay meeshii hadal baa ka yeeray
haddana wuxuu marka lagu amray inaan dagaal ku qaadno meesha gaariga wana ma garanaa ku waxaan leedahay aan weerar waxay yihiin dad shacab oo wadada gaari ka xiray ba maxay ma garanaa in naga dhaafaan koori kadib khilaafkii adoo si khilaafnay wuxuu khilaaf qodada iyo niyo khaynimo mar dambe ma ilaahay karaysid adoo ninkii isaga kulay telefoonada hay taagtaag waa markii dambe dhex maray iyo ilmaha karaysid kadib si baan ka soo dhaaday waan ka imid meesha waan kaga imid waxaan kaga imid ninka la soo afduubtay iyo ninka tali ku xigeenka waxa ahaa iyo ninka dhaawac ahaa isna habeenka nala socday kadib waan isaga imid meesha waan ka soo baxay magaalada soo galay meel ciidan saldhig ciidan agtiisa ayaa arkay iyadoo iga horeyso kadib anoo saldhiga agtiisa ku sii socdo xagga ciidanka nin askari iga hor yimid halkii baa beerka dhulka ugu saaray halkii baa lagu soo kaxeeyey kadib waan uga sheekeeyey waxa dhacay san arrintan ku yimid aan ugu yimid saasay markaa arrinteedu hadal lagu soo qabtay iskuulkee ka baxay ilaa inta gaarto waxbarasho waxaa ku gaaray ilaa iyo 7 aan ku gaaray aan ugu tagay intee magaaladee Nairobi iskuulka ka dhiganaysa Nairobi iskuul la dhahayo Daarusunna ya Daarusunna goorma kugu dambeysay Kenya waxaa iigu dambeysay 13 dhamaadkeeda meelaas adiga farmasho waa ku birtaan ugu birtay maxaana qaabilsanay aniga horta kiiskan ka hor maxaa gorsay ugu birtay maxaana qaabilsanay kiiskan ka hor horta kiiskan ka hor maaragtay aniga maaragtay xamara ku dhashay xamara joogay Kenya oo soo barbaaray xamar anoo imaaday ayar Xasan la dhahayaa soo wac oo Xasan maxaa lagu daraa Xasan ma qaan wax loogu daro asiga soo wacay inta ku bartay ya inta ku bartay Xasan asiga waxa ku bartay mara buulo qaraab salaan aaday oo bil dham intee buulo marka tagay ciyaalkii banooniga isla ciyaareen oo kamid ah banoonigii shacabkii ayaga isku dhex jiraan wajiga shabaab ugu ma qorno mugti banooniga la isla ciyaarayay shabaabka bal soo fiiriyay saddex xagiya aaday xagga marka aaday asiga maaragtaa u tagay deegaanka kunyu joogay meesha tagay meesha marka tagay abaan marka joogo qolo igu xiray معسكر إما جينين توبر يوح مسومر قلادي مال دجنو إيجيي كستوي جوي هفهمه ده هاي مركا ماشى تجي جوي وفهمه دور وكنا لاوا ما دام مجالس وجوي وحد هنيه ماشى عن كم بيحكي كرو مبانت وكسوتي مجالدي ده كسولات كوي ماركتاي ماشى أسكاجش قيسانيو سيدي ماركتاي إسبتال توبر كامل تنوعه aniga tobar ma marin maxaa qaybta lagu darma aniga isbitaal le ma aragtaa ka bilaab ya isbitaal ashay barista ka shay barista shay barista ilaa idurkiya shaqeynay kadibna danihiga karaacanay bishin lacagteeda ku qaadanay horta shilkan aniga ma ogeyn man ku soo talagelin moota meesha ku imaaday soona basro ubigiya soo gooyay waxaa imaaday meeshuu sheegay lambar isoo sii qof oo igu soo xiray qofkii soo waca marka asigoo waxa soo gal marka ciidan wato oo qoryo wato aniga waa soo raac qorna ma wato waa soo raacay meesha isla imaanay meesha horteedii isku qaybiyeen 5 qof ma aragtay gooni loo bixiyay 5 qof ma aragtay gudaha gashay aniga meel banaanka istaagnaa baabuurkii agtiisa istaagnaa gudahii galeen ilmo iyo naagay soo bixiyeen banaanka iyo wiil oo nin weyn qaangaar adiga ninkii soo wadeen agteeda la keenay agteeda markii la keenay ayagana gudahii galeen cabaar kadib xabada maqlay xabada maxaa waayaan dhahay ninkii qori haysto ninkii albaabka gudaha galay oo dilay asoo dilay waa xabadaha markay isku bilaawatay cabaara xabada isku dhacdhacaan kadib nin la wadaa la ii keenay oo baabuurka la soo saaray furana waa la ii keenay oo baabuur waxaa la dhahay shaqadaada qabso baabuurkan wad waxaa dhahani baabuurkan intee geena meelaha geema aqaan dhulna ma aqaan intee ka bixina adii yar waxaa la ii soo saaray dhulka kala yaqaan iyo cabdiraxmaan yar kale ayagana wadaan 2 qori ala ii soo saaray meesha markii la ii soo saaray iyo yarkii maxbuuska
iyo labo faka doonto baabuurka waa soo baxay waa soo dhaqaajiyey waa soo sheelareeyey saa usoo wada markaa meel imaanay oo ka soo dhex baxnay dhulkii oo wuxuu dhahay naceli intaa ka baxee waddo kaloo saas u wareeganaysaa jirto anna intaa kaaga haraa waxaa dhahay intaada ku haraysa anigana intaa ugu tagaa baabuurka waa ka soconaa haye waayaana wada celi oo dhah sidii ku soo laabanay ciidan booliis oo lug ku socdo oo labada wado ku kala socda marka hoosta iska soo galna marka inta ani arkin oo arka marka asiga baabuurkan waa iska tuuray baabuurku asoo iska tuuray ku soo baraarugay oo darashadii oo furan darashada marka arkay ayadoo furan oo ninkiina baxay mid kalena darashada dambe ka booday xabada ay ugu bilaabatay hore aan soo fiirinay xabada markay ugu bilaabatay meelaha wax ka qabtaa oo garawaaye waa sii sheelray hore u sii dhaxgal marka dhaxgalay dhaxdooda marka maraayo marka xabadihiya marka lugaa iga qabsadaan dhowr xabba igu dhacay kilnida iyo xabadii markay ugu dhaceen baabuurkii asoo eber oo lagu banjarsan oo cabaar ka dhex baxay xagga camal markuu tageen waa isdamiyay holaca ka kacay baabuurkii markuu holaca ka kacay ragaana dhahay ijiida marka saddex qof ay ahaayeen yarkii maxbuuska iyo cabdiraxmaan iyo yar kale marka ijiida dhahay wax yar ijiideen cabdiraxmaan iyo yarkii maxbuuska oo ahaanta loo waday iyo maaragtay iyo yarkii kale wax yar ijiideen geedaha adiga meel 15 tilaabo camal ee dhigeen 15 tilaabo camal meesha markay dhigeen askar iyo waxaa imaaday meeshii buuqay noqotay cabdiraxmaan jiidisti labaad ay jiidayeen asiga waa iga tagay meesha ay ugu war dambeysay waa iga tagay labadooda bas soo hareen yarkii kale iyo yarkii maxbuuska markay soo jiiday iyo kan kale geed kale hoostiisa ay keeneen kadibna ayagana ay kala daneysteen nin walba hortiisa aaday nin kasta markuu hortiisa aaday kaligiisa meesha u jiifay waxa iga kor imaadeen marka raadkayga la soo daba raacay adiga ciidana iga dul imaaday qaar xaggii ka soo hadlayeen qaar korkeedii marayeen marka mid kamid ah marka nuuxsigayga arkay markuu arkay nuuxsigayga amaan ku fartay qaj maqla markaas waxa dhawr qori ma wata adhaay waa igu bilaay xabado igu shubay adiga qasanada igu dhameeyay hal xabba igu ma dhacin kadib maaragtay taliyihii imaaday wuxuu dhahay ma dhameystirta waa dhameystiroo dhahay waa dhameystiray kadib taliyaha soo kor istaagay wuxuu yiri ninka waa nool yahay qori ma wadana dhaan tarawala aha tarawalnima maaragta ku socday saas miya asigana taliyihii soo wacay kulli waxa la dhahay soo qaad kan isbitaalka sida ku tagay sheekadaas u dhacay xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa garsoorka u sharaxay doorka maaxi ee qaalid ay ku lahaayeen weerarka iyo diiwaankooda qawaarijta iyadoo xiraalintuna ay soo bandhigtay gacan ay wateen eedeysanayaasha boorso dawooyin iyo agab kale oo caafimaad marka waxaan rabnaa guriga say u galeen arag gurigan waxaa ku noolaay caruur hooyo nabadoonkii waxaa ku noolaay dad badan xataa waxaa ku nooleed xaaska cabdicasiis oo xaamile ah oo laba nafley ah oo aad dareemi kartaan xaaladda markaas ay ku jirto guddan gurgaan ay ku nooleed feeri gurgaan sida qaabka loo gal feeri qof bil aadna lagu rido xabadaan bis dheeysid wax gurgaan ku yaalo oo guddoomiyay kabacdi waxay damceen markii guriga saas u galeen nabadoonkii ay dileen gaariga inay ku baxsadaan ciidamada amniga ayaa ka hortagay oo mudnaanta koowaad leh oo ciidanka amniga nabad sugidda ayaa ka hortagay oo soo qabtay oo ku dhaawacmay oo hadda meesha la taagnay inuu dhaawacan uu soo gaaray isagoo xaqqa nabadoonka raadinayo waa geesi askarigaas ka hortagay qawaarijtina baxsanin waa kan gaarigii ay ku baxsanay guddoomiyay nabadoonkii eedeysanii soo lum waa kana eedeysanahan nabadoonkii dhiiggiisa ka dhaxgelish asoo lumay la qabtay oo beerta cali maanta ka soo lumay deen u socdo oo habeenkii dagaal ku wareeray markuu dilay nabadoonka eedeysanahan marka waa kana
qadar cabdo waa ninkan nabadoonka daa fiirsaa mid gudoomiye korkiisa u yaalo iyo xabadaha ku yaalo bil aadan ka bax arxam darro tii ugu xumid ayay ku rideen suwaalka wajigiisa u yaalo korkiisa xabadaha feeraasi u yaalaan iyo noolaan ayaa loogu tala galay haddoo noolaadana si macnaha nolol aan caadihin iyo ku noolaan marxuumku waa kaasa eedaysana marka waa eedaysana khatar maxaa yeelay nafta bil aadinka iyo nafta dhalinyarada ee qawaarijta ee qaldaxatay wuxuu ku ahay khatar ku ahay dhaawacyada markay wax ka dhaawacmaan waa soo raacaa wuu la socdaa qawaarijta markay wax ka dhaawacmaan dhaawacaasi inuu noolaano ka shaqeeyaa cirbaduu ku dhufanaa cirbadaasoo aakhir u dirayso maaha cirbad badbaadin maahan cirbad dhiig joojinna maaha cirbadda oo ku dhufto qofkaas wuu dhimanaa maxaa yeelay ma rabaan qawaarijta in la qabto xataa waxaan aaminsanaha kii habeenkii inuu ta dhaawacmay ayaga dureen oo saas ku dhintay howlgal degdeg ah oo ay qaadeen ciidamada amniga ayaa lagu guulaystay in 2 ka mid ah argagixisada gacanta lagu soo dhigo midna la qaarijiyo saraakiil iyo askar ayaa garsoorka la wadaagay sida gacanta loogu dhigay eedeysanayaasha guriga markii dagaalka oo ka dhacay dadkii deegaanka na soo wacay anagoo joogo kontaroolka koowaad ee laga ilaaliyay degmada Daynile anigu waxaan ku magacaabana gudoomiyaha deegaanka askartan nisa oo meeshaas joogto kooxda ku qorneedna hoggaankoodii ahaa oo ku howlgelinaya meesha sidaas anagu u joogno deegaanka laga soo wactamay dadkii deegaanka askartii la soo wacay aniga la soo wacay dagaal ka socda leeyahay deegaankii xagoo ka socda guriga nabadoonka la soo weeraraayo sida aan xogta u baareynay waxay noo cadaatay in ay yihiin qolada qawaarijta soo weerartay deegaanka gurmad ahaan ku baxnay si degdega markaan tagnay meeshii intii ay noo jirtay 200 tilaab camal gaari soo bax gaariga markuu soo baxay ciidankii la socday gaarigii gadaalu joogay ciidankii la socday waxaan ku amray in aan lagu fududaan gaariga soo socdo si aysan maaragtay u dhicin waxa aan doonayno gurmadka aan rabno inaan qawaarijta u hortagno si uusan u fashilmin in gaarigaas lagu fududaano hadduu rabo shacab uu noqon karaa gaariga haddii xabad lagu furo waa inaan hubinno ciidanka ku amray in aan lagu fududaan gaariga xabada aan lagu furin sidii aan u taagnin isla markuu soo dhawaada gaarigii jidka aan soo dhex istaagnay kaabiga ugu jirnay wali jidka aan soo dhex istaagina waana xabada soo bilaabatay gaariga soo bilaabatay asgariya ku dhaawacmay anagana waa xabadaynay sidii xabadu ku bilaabatay gaarigu xoog uu nagu dhaafo gudbay gaarigu waa nagu aad uu nagu soo dhawaaday marka jidkan dhex ka rognaa dhar tuutahan wadanay markuu tuutayna awlaadka lagu qabto argay xabadna lagu bilaabtaa xabad lagu bilaabay meesha xabad oo dal sii qaaday aniga xabadii markii wax yar dhacay ka bacdina halkaas bowdaha xabad iga dhacday ragga waxaan ku bartay waxaan horta ku hor arkay ninkaas xoog loo madow oo geeska jiro waxaan ku arkay asigoo dhaawaca oo meel geeda dhexdeeda yaalo markaasna ay gacanta ku hayaan ciidan nisa iyo kuwa deegaankii isla markii uu markaas soo gaaray waxaan ku dhahay yaa la taabanin oo waxba la gaarsiinin markaas waxaan soo saarnay gaari cadibile oo degmada ay leedahay waxaa kaloo gaari yar oo raaxa ah ku dhex jiray shakhsi oo meedi marxuumka iyo asiga waxaan la soo saarnay gaari cabdibilaa si degmada loo keeno waxaa jiray askari kale oo deegaankee oo isna dhaawac ahay waan soo qaadnay ninkaas saasaan ku horbarta horta oo markaasaan degmada loo soo dhiibay si gargaar caafimaad loogu fidiyo meesha aragtiisii ugu horreysay cabdicasiis muumin xasan oo ka mid ah ehelada nabadoonka la dilay kuna sugnaa guriga marxuumka marka uu falka dhacayay ayaa garsoorka uga sheekeeyey sida loo afduubtay iyo sida uu uga badbaaday shirqowlka habeenkii ani horta waa jiifay duqa iyo aniga waa jiifnay duqa gabartiisaan qabaa aniga adeerkay u ahay marka mugaan jiifay waxaa yimideen walax xabadaha ay yimideen xabadaha markay yimideen ani marka xabadaha bannaanka ka dhaceen waa guriga sariirtaan jiifay waa soo fadhiistay ka dambo guriga xabad nagula bilaabay xabadda markay nagu bilaabatay aniga sariirtaan hoos galay aniga islaantayda iyo labadeeda cunug marka waxaa waaye islaanti iyo duqa islaantiisa iyo islaantayda markay ashahaateen iyo anigaba markay ashahaateen waxaa la yidhi
bannaanka soo baxaa la yidhi kulligiinba dadaan la yidhi uun oo bannaanka yidhi waxay ahayn horta anigu horta ma aqaan ilaah yaa og markaan bannaanka imid waxaa la yidhi indhaha ka xira indhaha liga xira haa yaa kaa xiray wax iga xira ma aqaanihi ciidan oo ahay uun indhaha markii liga xiray dhambadhabcada lii jiibshay hadre yaa dhambadhabcada lii jiibshay garbaha liga xira mehiga saa u jiifa guriga xabada loo colshay xabadihii kilimigay socdayna joogsadeen ka damba waxaa la yidhi ninkan baabuurka noo saara furaha sheegaa la yidhi ani yaa furaha sheeg ani furaha shaq kuma yahay aniga baabuurreena fulina baabuur muudinaa markii saas la yidhi islaanta oo duqa waxay tiri igaarkaa dilinina furo meel kuma ogee furaha ana haaye soo bixiyaa la yidhi waa soo bixisay furiyey siisay baabuurka noo kacshaa la yidhi aniga baabuurkaa mugaas lii saartay baabuurku way la carariyey kor iyo bari qof ilaah ka xiran kor iyo bari meel la cararo qof ma taqaan adina dadkaa ma dareemi karti meel lagu wado markii oo lila cararay baabuurka meel lilxoo bacaadaho gala meel lix bacaada mau galaa aan dareela soo naqa baabuurka inta u naqaynaha aniga meel lii wada ma aqaana ma u naqaysa u naqa waa la carara baabuurka handare ku baabuurka handare carara handare xabada handare baabuurka handare lagu fura xabada baabuurka marka lagu furay baabuurka soo xawaaraha soo gudbay waxay yihiin la aqaanin xabadaha oo baabuurka iska roogseeyay amar ilaahi baabuurka wuxuu keenay qaac iyo holac dhilix oo hoosa markuu keenay ani baabuurka daaqadan iska furan marka waa ka carara waxaa la yidhi ninkaan dhaawacan jiidayay emergency waa jiidaya ninkaan dhaawaca yaa waa ninka dhaawac muxuu ahay marka yaa ninka dhaawac wuxuu yahay marka ninka wuxuu yahay ma aqaan ilaa hadda ma aqaan mugaasani aye waxaa la yidhi marka nimanka gaariga kula saaray miyaa ninka dhaawaca haa nin gaariga la saaray waa kuwa ku saara gaariga marka indhaha kaa xirayo ka mid yahay miya haa kuwa baabuurka saaran ka mid yihiin ilaa baabuurka asa saarnay maano marka waxaa la yidhi jiidayay markaan jiiday waxaan geeyey meelgara soo juqa oo goofa markaan geeyey waxaa la yidhi ninkaan la jiray yani kama sii karti ilaa amar dambe laba nimoo kale ay dhehe waa dhamaatay aniga nafta ororday kugu aamintaahe waa ka cararani markay ay lii kartaan ka carara maan ka cararay oo geed quraca oo laanahoo saasu dalicdaan fuula geed quraca oo laana oo goofku dhex yiili aan iska fuulaani ilaa habiib madow waay markuu xaasiri geedkan quraca iyo ciidamadan dare waxay yimideen fara badan asi qayle iyo buuq ay hadar xaasiri quracan oo muuqdo waa laga arkaa asirane waa ka degta garsa handara fuula garska ma fuula garska waa igu bariyo buuma iyo ciidamadii inay iga xirradaan aan ogsanaane ka dambe ciidamada dawladda waxa ay timid waagaha doo bariyo hiiladina ay yimid ciidamo oo degmada ka mid ah garska isu dejiyeen baabuurka cabdillahi soo saaray mugasaani wax kale ogahana ma jiraan xabadihii oo guriga la iska warsaday xabadaha dhamdhacaya iyo waxaa sababta maxay tahay maxaa saas dham la isugu xabadiyahay muxuuna yahay ninka dhintay iyo imee qof aan guriga ku dhimatay guriga waxaa ku dhintay hal nimoo bannaanka jooga kow oo sali ku fadha aa ku dhintay xabadaha bannaanka ka maqlay magaas waay iyo duqaa ku dhintay guriga duq marka ma dirirayn maxaa laga rabay duqa xabadaha ku bilaabta qorigaysa duqa xabadaas ku bilaab waa xabadiyaadi xabadaha saas u dhacaya ninkan bannaanka joogta muxuu ahaa isna kan bannaanka jooga kan bannaanka jooga waxaa waaye qorna ma haysa ninka asaa miisa fadhaa lagu diya magaciisa xal yidhahdaas qadar cadow adiga marka qadar buu soo qor la'aanaha la dilay adi maxaa lagu dili waaye aniga ilaahay xaggiisa aan ka fakaday ani ilaahay xaggiisa aan ka fakaday qoftu ilaahay dir rabaa dhameen markay ku soo bixiyeen gaariga marka lagu saaray gaariga meeqa qofaa saaran gaariga
gaariga hanimo oo meedaho wax deegaan qaayo ee dhaxay iska diiray ma qaan mas duqa diiray ma qaane baa ila saarnay waa ligu fadhiisiyay ya waa ligu fadhiisiyay haye ninka meedka ma ku fadhidaa ku fadhiista haye aniga mid ku dambaabay horta haye qofta waa aqaan horta kumali aniga haye marka baabuurka mee qof ku sareeday marka baabuurka kursiga dambe jiifinka ya kursiga dambe ninka saaray waa dareer marka aniga ma ku fadhiisaa dareemano nima meesha jiifsho ana kursiga dambe asa ku fadhiistay ninkaas marka ninka meedka waa ninka meedka ninka oo soo noolaa kama qaan la ku fadhiistay subaxdii markii caadi waaga bariyay goorma guri ku laabatay oo odagii inuu dhinto ogaatay iyo wixii ciidamada ay sheegeen oo meesha ka baxaana ay sheegeen odaga wuxuu qaban jiray asiga duqa nabadoon oo hada ay ugu dhimay marka adiga guriga la deganayd miya guriga ma deganaa ana guri kala lahay duqa adeerka islaantayda xaamil ah bugaasay duqa marka wuxuu ana hayha yarkaygu anigu igow waa dhamaatay habeenkaas marka habeenka caana u keenan fudhayo caana u keenan meesha caana u keenan habeenkaas meeqa saac amal wax dhicin meeqa saac amal saacad caana way keenan markii xabadaha ku bilaabanayaan meesha ma qiyaas kare runtaas shaqa fiican xabada yaa ka markii habeenka meesha ku hiiribta miyaad habeenka saji ila jiifo uri suuxi bara i jiray iska jiifo marka dareen oo duqa uu ka baqay in la soo weerar doono waxas ma jireen maya waxa uu sheegay ma waxa ka cabsan ma ninka wax ka jiifay adika marka xabadaha bilaawdeen ma ala soo bixiyay marka mise xabadaha kadib ay soo bixiyay xabadaha ma bilaawdeen oo kin nugula wadane aan banaanka naga ashaateen iyo aniga ahli banaanka ma macna markaas odaga waa nool yahay marka odaga markaas waa nool yahay marka bixisaan odaga inuu ismaan kala qaana marka xabadu soo dhacayaano xabadaha joogsadeen ya xabadaha joogsadeen marka soo baxday kadib xabada ma dhicin miya maya guriga marka guriga dhagaxa miya ya guri dhagaxa la miiri baaraha galkan ayaa isna maxkamadda ku biiriyay natiijada ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida xeraliyaha Cabdiyar ayaa maxkamadda ka codsaday in dil togasho ay ku xukunto labada eedeysane waxaan qiraalkooda ka cad inay ka soo dagaalameen gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waxay weerar ba'an oo aan loo meel dayin oo naxariis darro ah ku soo qaadeen al-shahiid al-marxuum nabadoon Cabdi Xasan Nuxudiin nabadoon Cabdi Xasan Kaduud iyo Qadar Cabdow Maxamuud Jamcaale sidoo kale waxay dhaawaceen Dablanisa Cabdullaahi Maxamuud dembigaas wuxuu dhacay 4 bisha 3 2024 waxaan cadeynay mudug gudoomiye 4 shay aan cadeyn oo kiiska muhiim u ah oo 110 iyo 163 xeerka cabka ciqaab Soomaaliyeed ay sheegayaan waxaan cadeynay inuu fal dambiyad dhacay maxaa dhacay shabaab in la yahay horta fal dambiyada uu dhacay lambar 2 dagaalada dhacay waa 10 midka koowaad ninka koowaad oo maaxil yiraahdo 10 oo ka qayb qaatay 10 oo ka qayb qaatay hal ayaa la hayaa oo lagu soo qabtay oo faragalansa ah halkaas waa midka hadda uu dhibanaha ka yahay Allah u naxariistay eheladiisna dhibray ka yihiin marxuumka nabadoonka magaciisa sheegay iyo wiilka dhalinyarada ee nolosha hadda hor u lahayd ee Qadar Cabdow sidoo kale nagu dhaawacay askariga ciidanka nabadgelyada ka tirsan sidoo kale lagu afduubtay Cabdicasiis Muumin Xasan intaas inay dhaceen oo weerarkaas intaas oo qasaara ay ka dhasheen iyagana waa u qiraal anigana waa cadeen yaa cadeehay marka waxa goobta keenay ku dhawaad oo maxkamadan hor keenay ku dhawaad 4 marqaati oo maxkamaddu ay kutubka marisay oo goobjoog waa dhacdaas sidoo kale qaarkood gurmad ku tagay meesha sidoo kale uu meeshan ka hadlay ninkii afduubteen oo Ilaahay ka soo baxshay saaamsanna laakiin ujeedkoodu uu ahaa inay dilaan mudug gudoomiye in dhimasho ay dhacday waxa cadeeyay marxuumkii aan meeshan keenay iyo warqadii cadeynta dhimashada sidoo kale
waxaan caddeennay khawaarijta inay weerarkaasi ku soo talagaleen oo ay ujeedku u ahaa in nabadoonkaas la weeraro waxaa caddeehay agabka caafimaadka meeshaan keenay agabkan mataajooyin iyo faleembooyin iyo cirbado dhiig joojina iyo waxaasoo dhan waaye waxaa loogu talagalay wixii ka dhaawacmo inay ku xiraan wixii ka dhaawacmo ay qaadi waayaan inay ku dhammaystiraan ay dilaan khawaarijtuna waa sidaas qofkii ka dhaawacmo ma qaadaan ilaan tabar uma hayaan nin walba naftaa ka dhace marka dhakhtarkii la socdo asaa ku mudaayo hore u diraa marka aakhiro u diraa sidoo kale waa caddayn inay dhacataas mudane guddoomiye marka waxaad dareemaysaa qodobada aan ku soo eedeynay inay xaq ku yihiin oo si sax aan u saar maxaa yeelay waxaan ku soo eedeyn qodobka 6 faqradiisa 2 ma dhacday haa way dhaceen labadoodaba 2016 iyo 2018 ku kala biireen waa caddeen saddexaad ma dhacday haa ninkaana tababar maktab caafimaad la soo baray oo ninka isna labaada oo la yiraahdo Maxamed Yuusuf Jaamac tababar caafimaad ayaa la soo baray oo khawaarijta tababarkooda dhag leelaa bis waa baal yaro ku dur ka bixi sidoo kale waxaan caddeynay mudane guddoomiye ninka gol janna ka imaaday asaga jecleystay asaga inta wax soo barbar dhigay bulo fulay soo dhacay gol janna to bulo fulayo waa caddeyn inuu asagana fikirka iyo heebe iyo baalku wuxuu leeyahay hamuunku u hayay shabaabka khawaarijta dadka leehayo inuu wuxuuda saxan yihiin inuu soo aaday asoo jibeysan imaadana bulo fulay iyadana waa caddeynay marka taas waxay caddeynaysaa meeshan uu ku tababartay ku biiristi iyo tababarkii meesha caddeynaysaa 15aad ma dhacay qodobka 15aad mudane guddoomiye aad u fiiriyay waa shirqool iyo abaabul dambi oo sheega oo fal argagixisay ma dhacdaa yaa ka weyn nin masaakiina oo nabadoona 6 saac u habeenimo oo guriga ay joogto gabar uur leh oo guriga ay joogto joogo ciyaal xaas leh in 6 saac u habeenimo xitaa shareecada islaamka ma banaynayso xataa waqtiyadaas in guri la tago shareecada islaamka ku dhaqmay liga khawaarijta saacadaas in nabadoona masaakiina ay beegsanayaan oo ay aadayaan saacadaas marka ma dhacay shirqoola dhacay shirqoolku maxaa waaye nabadoonka 15 qof lagu soo weeraray soo qof qore hal qore hesho sidoo kale abaabul dambi ma dhacay haa nabadoonkana ku weynay nabadoonka masaakiinka ku weynay nabadoonkii buur dheeraan ku weynay 18aad ma dhacay guddoomiye haa woo dhacay waxaana dhacday ayagoo 15 inuu nan mid si aan soo uga baxsan nabadoonkaas mid walba xabad u rido waxa loogu talagal fiiri 5 la galshay 10 gadaal degtay 10 gadaal degtay macnaheedu maxaa waa wixii hadii 5 soo leedahay inay diyaar u yihiin macnaha wixii ka soo baxan guriga inay gubaan gurigaad aragteen hal xab kuma dhicin 5 qof waxay rideen kuma dhicin waxa ku dhac 15 qof waxay rideen oo uu kow ka yahay maaxi oo laba ka yahay qaalid mudane guddoomiye marka woo dhacay laatii kuwaadna waa dhacday kan ugu weyn waxa dhacay 434 dil ka saar dhacay maxaa yeelay cali mahdi la soo lugeeyay ilaa cali mahdi ilaa buur dheer waxa u dhaxayso masaafo dhaweyn ujeedka la soo baxo qoryaal la soo qaato daawadan la soo qaato maxaa waay ma aan xir ciidan ma aha meel dool in la weeraro ma nabadoon masaakiin gurigiis in la weeraro in la hareereeyo waay in la dilan waay gurigaasna waxa ku nool waa cadeen mudane guddoomiye masaakiinka hadda hadlay uu kamid yahay marka waxaan codsanaynaa qodobka 434 waa dhacay dambiga 15 koodaba waxay ka yihiin ka qayb qaatayaal isku caawiyaal isku wada falayaal ay ka wada yihiin marka mudane guddoomiye marka maadaama asaas oo dhan u cadeynay maadaama aan keenay meeshan maadaama uu fargalansa uu jiro maadaama agabyada aan keenay maadaama marqaatayaal cadeynayo dilkaas in ay geysteen oo ragii geystay yihiin aan keenay waxaan codsanaynaa labada eedeysane kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi loo yaqaan Yunis iyo Maaxi iyo Maxamed Yuusuf Jaamac Jibriil loo yaqaan Qaalid in maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah oo qisaastii nabadoon Cabdi Xasan Kaduud iyo marxuum Shahiid Qadar Cabdo Maxamuud maxkamadda ma santa abukaata Caarif ayaa isna codsaday in muwakkiliintiisa loo fiiriyo si fifaalaha dambiga fududeeya mudane guddoomiye anoo ku hormaray qodobka 16 qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed difaaca raacsiina doona qodobka 119 gabagabada madaxweynaha xafiiska xilaalintu eedaha uu ku soo eedeeyay sida maxkamadda horteeda maxkamadda ay ugu akhrisay si waafaqsan 103 si waafaqsan 104 ay ku jawaabeen dood baan ka qabnaa
doodii ay ka qabeenna maxkamadda ay u caddeeyeen oo ah ay qiraal u yihiin ka mid noqoshada ururka shabaab qodobkaas marka 6aad iyo 2aad iyo 3aad iyo ka difaaci mayo laanna ayaga inay urur shabaab ay ka mid yihiin difaacigu wuxuu saaran yahay qodobka 434 waa dil bareer ah ulakac ah muwakkiliinteeda horta qiraal uma ahan inay dilka ayagu ay shakhsiyan u geysteen qiraal uma ahan markhaatiyaasha xafiiska xeeraalinta uu ku soo ogadeeday canaasirta uu ka koomo 434 kow waxaa ah qiraal 2 waxaa ah markhaati 3 waxaa ah marag muujin saddexdaas midna xafiiska xeeraalinta maxkamadda horteeda ma keenin qiraal uma aha inay dilka geysteen markhaatiyaasha maxkamadda horteeda la keenay macabaarihi hal mid ah oo caddeeya inay ayagu falka dilka geysteen ma jirin hal mid oo caddeeyey xafiiska xeeraalintuna ma keenin exhibit ay wax ku dileen hal mid oo ayaga ka mid ah oo exhibitkii dilka lagu geystay markhaatiyaalna ma ay sheegin maxkamaddana lama hor keenin baaruhuna ma sheegin guddoomiye yihiin mishinkii meesha ka dhaca qayb inay ka ahaayeen sida baaruhuba sheegay wuuba kala caddeeyey baaruhoo midna wuxuu ahaa buu yidhi gaariga loo dhiibay ficilka inuusan qayb ka hayn buu sheegay midna difaac inuu ku jira uu sheegay ka qayb noqoshada waxaa ficilka ah iyo fuliyuhu waa kala labo fuliyayaashii dhibka geysto ayagoo kooxdooda ay ka mid ahay waa kooxda baxday wey maadaama aan la haynin kooxdii fuliyayaasha oo baxday oo ayagu gacansiinta ahaayeen oo 298 inuu ku soo eeday xafiiska xeeraalinta la rabay maadaama uu markhaatina u haynin qiraan la wuxuu u saaray inay 434 ay geysteen taasaan kaga jawaabayaa maadaama waxaan u gudbayaa gabagabada maadaama xafiiska xeeraalintu 434 canaasirta uu ka koobnay hal mid oo ka mid ah si waafaqsan 168 si waafaqsan 110 uusan u cadaynin markhaati uusan jirinin qiraalna uusan jirinin exhibitna uusan jirinin waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa gebi ahaanba 434 maadaama xafiiska xeeraalintu xataa uu dalbaday qisaas marxuumiinta loo qisaasuu yidhi horta hal qisaas waxa ka hor inuu cadeeyo inay nimankii ficilka geystay inay yihiin marka maadaama aan qiraalna jirin markhaatina jirin cadeyna aysan jirinin waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa gebi ahaanba inay ku weydo 434 qodobada kale ee xeerka la dagaalanka argagixisada maadaama qiraal ay u yihiin aysan maxkamadda aysan mana habaabin waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay u fiiriso qodobka 42 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed heerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadduna waa maasanta doodii aad dhegeysanaysa maanta maxaa kaaga baxay maxaana maxkamadda ka codsanay kulli maxkamadda sharafta waxa ka codsanayaa anigu inay shabaab waan ka mid noqday laakiinse waxa ugu weynaan qabanahay in 2 habeen ama 3 habeen aan tagnay markooyga ama haanta dheer bulshada inta saldhigga la xabaday laga soo noqonay agtiisa marka horta macnaha anigu markaan waxa sheeganay waxaan isku wada qof aan dambi gelin aan ahay waxaan oo dhan ka sheekeynay marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa dambi aanan gelin weligii qof madiina dusha lay saaray horta eed aanan lahayn in dusha layga saarin marka in la qafiifiyo ugu dambeeyna gaashaana sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa fadhigan soo xiray maxkamadda ayaa go'aan ka soo saarayso fadhigoodna xiray Xaji Fataax Khiyaar warbaahinta qaranka Muqdisho